bismillaahir rahmaanir rahiim idil ahaantiinba meel kastoo naga daawanaysaan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo waliba barnaamijka dhacdooyinka la yaab kale ee telefishinka qaranka. barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkan waxaan idinku hayaa oo aan idinku soo deyn doonaa xubno idin raali gelin doona. waxaa ka mid noqon doona oo aan ku soo qaadan doonaa nin isagu dhagtiisa ku qaadaya culays gaaraya 50 kilogram. waxaa kaloon idinku hayaa daawadayaal inan iyo waliba nin ku wada tartamaya inay shimbralaaye ku ganaan mushamacyo tiradoodu aad u badan tahay. dhacdooyinka iyo waliba kuwa kale oo aad u xiiso badan ayaan barnaamijka dhacdooyinka la yaab kale ee toddobaadkani aan idinku hayaa ee ku soo dhawaada barnaamijka. aan soo qabto xubinta ugu horeysa iyo waliba barnaamijkeena dhacdooyinka la yaab kale iyo toddobaadkan xubintaan idin soo qaban doona ama dhacdadaan idin soo qaban doono ayaa waxay tahay nin u dhashay wadankaasi Spain oo doonaya inuu World Guinness Record ka ku soo bandhigo in uu dhagtiisaasi ku qaado culays gaaraya 50 kilogram. ma u suurta gali doontaa culays intaas leeg dhagma lagu qaadi doona goobjoog baynu ahaan doonaa daawadayaal ee daawasho wanaagsan. Record fans with Julian Horrado, unassuming and almost middle-aged at first glance. Yes, I will agree with you. aynu aadno wadankaasi Spain iyo ninkan lagu magacaabo Julian. ninkani waxa uu rabaa in uu dhagtiisa ku qaado culays gaaraya 50 kilogram. dhacdadani waxay tahay mid aad u khatar badan. daawadayaasha waxaan uga digaynaa inay isku dayaan dhacdooyinka noocan oo kale ah. bal haddaba ninkan u dhashay wadankaasi Spain ayaa waxaynu eegaynaa isku daygiisana ah inuu dhagtiisa ku qaado culayskan gaaraya 50 kilogram. in dhagta lagu qaado culays intaas leegna maaha wax fudud amaba wax sahlan, bal isku dayga ninkani inay u suurto gasho aynu daawano. Julian's now getting his ear ready. This is a specially designed clamp that fits over the ear. He will then chain this up to the weights. Just making sure it's nice and firmly in position. If this goes wrong, he really will have a problem. There we go, just screwing it into the base of his skull. Only joking, just fixing it to his ear. Here's the weights. He steps up to the mark. He's looking pumped. He's looking psyched. Get that finger out of his ear. He's got a job to do. Here we go. He's all poised. He's ready. Ear. Our adjudicator's making sure he's happy. 3, 2, 1, and he's gonna lift. That looks pretty dangerous to me. Oh wow! Well, oh no, just over 2 seconds and it's fallen off. I do not believe it. I think part of his ear has come off as well. That looks painful. It's bleeding. Somebody bring on the paramedics. sidaad arkaysan daawadayaal ninkani waxa uu dhagtiisa ku qaaday culayskan gaarayay 50 kilogram walow ay soo gaadhay dhaawac oo uu culayskani ka dhacay. bal haddaba waxaynu eegi doonaa natiijada laga soo saaro ninkani ee daawasho wanaagsan. Nothing too serious. Poor old Julian. I'm sure he'll be well looked after. There we go, and we've got his bandages back on. Smiling from ear to ear, which is quite lucky. Here he is again. Okay, are we going to see a second attempt? Julian, this evening you demonstrated the true spirit of a Guinness record holder. It's saying now that Julian has shown the true spirit of a Guinness World Record attemptee. Guts, strength and determination. However, the earpiece did fall off Julian's ear. Is this record going to stand? Is it going to count? Are there going to be any special concessions? Yes, there are. He is going to be awarded a unique Guinness World Record, which will say that he has lifted a weight with his ear for 3 seconds. Congratulations, Julian Horrado, a new Guinness World Record and a very sore ear to boot. Julian ayaa ku guuleystay oo buuga dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan ku galay
inuu qadar gaadhayaa 2 daqiiqadood uu dhagtiisa ku qaado 51 kilogram sidaasna waxa uu ku galay oo ku mutaystay oo uu helay abaalmarinta lagu bixiyo buugan lagu kaydiyo dadka la yimaada waxyaabaha cajaa'ibka badan aynu intaasi kaga nimaadno dhacdada ugu horeysa iyo waliba barnaamijkeena dhacdooyinka la yaab kale ee telefishinka qaranka dhacdada labaad ee aan idii hayo ee aan idii soo qaban doono ayaa waxay tahay nin iyo waliba gabadh yar amaba inan yar oo ku wada tartamaya in ay buugan dhacdooyinka uu midkood ku guuleysto in ay shimbirlaayo ku ganaan mushamacyo ifayo oo tiro aad u badan ah waxaana la eegi doonaa wiil gabadhaasi iyo waliba ninkaasi kooda tirada ugu badan muddo 1 minute gudaheed ku bakhtiya mushamacyadaasi iyagoo adeegsanaya shimbirlaayahaasi bal dhacdada labaad iyo waliba barnaamijkeena dhacdooyinka la yaab kale aynu fiirino dhacdadana aynu ka eegno dhacdo ka dhacday wadankaasi Spain gabadhan yar iyo ninkan ayaa waxay ku tartamayaan in ay ku kala baxaan oo midkood ku guuleysto oo uu helo abaalmarinta laga helo buugan caalamiga ah ee World Genius Recordka dhacdada ah in ay shimbirlaaye ay ku bakhtiyaan mushamacyada aad halkan daawadayaal ka arkaysaan ee ifaya mushamacyadan ifaya ayaa waxa ay u jiraan 10 mitir amaba 10 talaabo haddaba waxaynu eegi doonaa oo ku horeyn doonta gabadhan yar bal waxaynu eegi doonaa inta mushamac ee iyadoo shimbirlaayahaasi adeegsanaysa ay ku bakhtiiso amaba ay kaga tuurto miiskani ee daawasho wanaagsan down as possible just by using a catapult. First up is this menacing young lady. 10 seconds already gone on the clock and she's missed again. Okay, 15 seconds down. Boom! I think we can safely say that was a direct hit. Number 2, look at that. On a roll at last. Here we go. 32 seconds on the clock. Ooh! Close but not close enough. There's some arrows just letting her know which way she has to shoot. Otherwise she'll start taking out the audience. 3 down, 20 seconds left on the clock. Oh no, she's lost her rhythm again. Down to the last 15 seconds and only 3 cans have been smashed to pieces. Look at that, straight through. Clean as a whistle. 5 seconds, 4 seconds, 3, 2, oh, she's already given up. She knows she's run out of time. Oh my word, sadly not quite as well as she'd hoped for. She scores 4. sidaynu arkaynay muddo 1 minute gudaheed ayaa ay 4 xabo oo mushamacyadaasi kamid ah ay miiskan dushiisa kaga tuurtay amaba ay ku bakhtiisay bal aynu eegno ninkan isagu la tartamaya gabadhan yar isna muddo 1 minute gudaheed inta uu shimbirlaayahani kaga tuuro mushamacyada halkan ka ifaya amaba inta isna ay ku qaadato muddadaasi 1 minute ah in uu kaga tuuro amaba uu ku bakhtiyo mushamacyadaasi Next up is fellow Spaniard George Barril de la Vega, and he too is on his 2nd attempt. Now he's got to beat 4. First shot, direct hit, and 10 seconds already gone. Number 2, strike, and he already looks the more deadly shooter, but he's just got to speed up his reloading technique. Look at that! 3 down, 20 seconds gone. Ooh, pressure's on. 30 seconds left. It is 1 more to equal the record. He looks quietly confident. Look at that. No worries. Smash. Reloads. Takes aim. Fires. Strikes. 5. Guinness World Record. Let's see how many more he can get in the last 15 seconds. Look at that. Robin Hood would be quaking in his boots. Number 6, down to the last 5 seconds. Has he got time to reload? Aim and shoot. Go on, get 1 more in. And he has. Look at that. Dying seconds on the clock, and he still gets 1 more in. Now I know the clock counter you just saw said 6, but I'm convinced that's 7. sida daawadayaal arkaysaan waxa ku guuleystay oo dhacdadani isagu ku mutaystay abaalmarinta laga helo buugan caalamiga ah ninkan lagu magacaabo George
isaga oo 7 xabadood oo mushamacya ah ku dhuftay oo meel masaafadeedu gaadhayso 10 mitir kaga soo ganay shimbiralaayahaasi halka ay gabadhii yarayd ee la tartamaysay iyadu muddo hal minada gudaheed ay 4 xabadood oo mushamacya miiskan dushiisa kaga tuurtay amaba ay ku baqtiisay haddaba waxa guuleystay oo World Genius Record-ka ku galay ninkaasi lagu magacaabo George waxaanu helay abaalmarinta buugan laga bixiyo dhacdadan markan idin soo qabanaya waxay tahay mid ka dhacday wadankaasi Faransiiska waxaynu ku eegi doonaa laba group oo ka dhisan wadankaasi Faransiiska oo groupkiiba 3 qof ka kooban yahay ayaa waxay World Genius Record-ka ay ugu tartamayaan in ay ku dul ordaan biyo iyagoo markaasi gacmahooda adeegsanaya meel salaanana qabsanaya oo ku dul ordaya haddaba labadaasi group ee u dhashay wadankaasi Faransiiska ee ku tartamaya in dhacdadan midkood ku guuleysto ayaa waxa la eegi doonaa kooda waqtiga ugu yar ku guuleysta in ay biyahaasi ku dul ordaan iyagoo gacmahooda adeegsanaya qoladiibana amaba groupkiibana wuxuu sameyn doonaa 3 wareeg oo ay kala sameyn doonaan mid 3 nin ee ka kala tirsan labadaasi group bal dhacdadan aynu fiirino daawadayaal dhacdadan oo ka dhacday wadankaasi Faransiiska ayaa waxaynu ku eegaynaa labadan group ee aad arkaysaan ayaa waxay ku tartamayaan oo ay doonayaan inuu midkood ku galo buuga dhacdooyinka la yaab kale in ay ku ordaan oo ay gacmahooda ku dul ordisiyaan salaamadan iyagoo dul ordaya amaba hoostooda ay yaalaan biyo haddaba labadan group ayaa waxaynu eegi doonaa kooda guuleysta haddaba qolo walba waxa laga rabaa in ay 3 wareeg sameeyaan waxaana la eegi doonaa 3daasi wareeg marka ay sameeyaan kooda waqtiga ugu gaaban ku dul orday bal haddaba aynu soo qabanno oo aynu eegno groupka ugu horeeya ee iyagu dharkan cad xidhan ee daawasho wanaagsan attempt to see how fast they can complete their relay. And here are the guys from the 2K who'll go first. After 5 seconds, it's looking good so far. Good upper body strength. He's using every ounce of strength he possibly can in his arms and in his legs to keep him moving steadily forward. Great upper body strength, there's no letting up. And he's absolutely flying along the monkey bars and he's halfway back along the course. 25 seconds on the clock, his feet are literally brushing the surface of the water. A useful reminder that if they lose their grip, it's straight into the pool for a wet wake-up call and the end of their record attempt. Contestant number 2, 40 seconds on the clock, looking good so far. Calm, controlled and collected. He's at one end of the bar, he's got to make a steady spin round. Don't bite your fingernails, you'll get worms. And he's back, 50 seconds gone. Halfway across. And it's tipping with rain, not that it's going to matter much if he falls into the pond. Here we go, 1 minute on the clock. 1 minute and 2 seconds. Third and final attempt to complete that relay. Wow, he's really going for it. Hopefully this will make up for some lost time. 1 minute and 15 seconds. Everybody's looking excited. Good spin, good turn, great technique. He's that little kid's chewing his fingernails. We've got something firmly lodged in between his teeth. Who cares? 1 minute, 25 seconds down. Is he going to ring the bell? Yes, he has. 1:29. Stop that clock. groupkan ugu horeeyay iyagu dharka cad xidhan ayaa waxay ku guuleysteen amaba waqtiga ay ku dul ordeen biyahan dushooga iyagoo isticmaalaya gacmahooda uu noqday 1 minute iyo waliba 29 ilbiriqsi amaba second bal aynu eegno groupkan labaad ee iyaguna la tartamaya ee raba in ay iyaguna buuga dhacdooyinka la yaab kale in ay ku guuleystaan ee dharka cad xidhan iyaguna waqtiga ay ku qaadato in ay biyahan ay dul ordaan iyagoo gacmahooda isticmaalaya oo qabsanaya halkan aad arkaysaan. Sold our Swedish friends Boston Michael. It's straight back to France to find out the gripping conclusion to our Monkey Bar Marathon. Go! Next team to give it their best is Team Set in the red. Off they go. Good luck, and remember, keep out of that pool below you. It's full of hungry sharks. Not really. But maybe that thought will keep you motivated. First man is going like his life depends on it. 20 seconds on the clock and he's nearly completed the first stretch of the marathon relay. Could this be a new Guinness World Record?
Could Team Latuke be handing back that shiny trophy already? I have a nasty feeling that that could be just the case. Okay, here comes lad number 2. Quarter of the way there, 40 seconds on the clock, going strong, nice technique. He's touched the end bar. He can turn around, great turning technique. Halfway back across the pool, 50 seconds on the clock. Look at the rain, it's really tipping down. Nearly at the bell. That's it, he's at the end. Now it's time for the final lad in the team with a shaven head just to cut down on wind resistance and shave off a few valuable seconds. It's gonna be tight, it's gonna be close. Look at the power in his arms, 1 minute, 14 seconds. Are they gonna do it? He's nearly there. So close yet so far. 1:19. Ring that bell, ring the bell. He's done it. A new Guinness World Record, beating Team Latuke by 5 seconds with a time of sidaad arkaysan daawadayaal groupkan labaad ayaa iyaguna waxay ku dul ordeen qadar gaadhaya 1 minute iyo waliba 24 ilbiriqsi waxaanay ka waqti gaabteen groupkii labaad ee la tartamayay oo iyagu ku dul orday 1 minute iyo waliba 29 ilbiriqsi groupkan dharka cascilan ayaa iyagu ku guuleystay oo buugan dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan ku galay oo kaga guuleystay kooxdii kale kula tartamaysay dhacdadani sidaasna waxay ku heleen 3 nin abaalmarinta uu buugan World Genius Record haddaynu intaasi kaga nimaadno dhacdadaasi aad ka xisaab badnayd daawadayaal habeenkan caawa waxaan ku gudu jirnaa dhacdooyinkii ay lamaanayaasha ama labada ama groupadu ay ku tartamayeen dhacdadan markan idii soo wadaana taasi kama foga waa 2 nin oo ku tartamaya iyaguna in ay kubadda basketballka ka xareeyaan shabakha kubaddaasi ay leedahay waxaana 2 nin ee ku tartamaya dhacdadani laga rabaa in muddo 1 minute ah mid waliba uu 35 kubadood uu ka xareeyo shabakha kubadda basketballka keebay u suurta gali doontaa in uu isku daygaasi ku guuleysto oo 35 kubadood muddo 1 minute gudaheed uu shabakhaasi kaga xareeyo ma wada gaari doonaan ma wada hari doonaan midkood ma ku guuleysan doonaa isku daygoodan ayaynu ku ogaan doonaa ee aynu eegno daawadayaal 2 nin ayaynu ku eegi doonaa ee ku tartamaya kubadda basketballka waxa ay rabaan inay kubadda basketballka ay ka xareeyaan oo ay ka dhaliyaan shabakhani haddaba 2 nin ayaa waxa laga rabaa muddo 1 minute gudahood inay gaarsiiyaan 35 xabadood inay ka xareeyaan shabakhani bal waxa la eegi doonaa oo aynu eegi doonaa muddadaasi 1 minute 2 wiil ama 2 nin kooda ka xareeya shabakhani 35 kaasi kubadood ee kubadda basketballka ah kooda ku guuleystana goob joog baynu ahaan doonaa ee daawasho wanaagsan dhacdadan waxaynu soo qaban doonaa wiilka ugu horeeya oo isagu lagu magacaabo Erikson amaba wiilkan xidhan garanka akhtarka ah iyo waliba dhacdadani grab a Guinness World Record. Off he goes, good steady rhythm, fantastic technique, just a quick bend of the knees and a rock solid two-handed release. Off to a bit of a wobbly start, he missed the first one, but he's flying through them now, already up to strike number 7. Well, it would be a strike if he was playing Skittles, but he's not. It's basket number 10. The balls are flying to the hoop, he's doing very, very well, and he's going at it at a hell of a rate. Top stuff, Michael, keep going, fella. Do not buckle under pressure. There's a Guinness World Record at stake. Up to number 17, yes! Now, Michael here, as you can imagine, is a professional basketball player and plays for Swedish top basketball team, Alvik, which have in fact won over 30 national titles, and I can see why. Michael hardly misses. He's like a heat-seeking missile, or more like a basketball hoop-seeking assassin. The accuracy is unbelievable, up to 29, great shot. No sign of letting up yet. His accuracy is absolutely unbelievable. Ooh, that's it! 1 minute down and 32 on the clock. Well done, fella, but not a Guinness World Record. sidaynu arkayno waxa uu wiilkani lagu magacaabo Erikson muddo 1 minute gudaheed uu shabakhan kaga xareeyay kubada gaadhaya 32 xabadood kuma uu guuleysan oo ma uu gaarsin 35 xabadood ee laga rabay in uu shabakhan ka xareeyo bal aynu eegno wiilkan kale ee kula tartamaya ee garankan madow xidhan isna inta kubadood ee muddada halkaasi minid ah
uu ka xareeyo shabaqani in uu gaarsiiyo 35 xabadood iyo inuu ka yareeyo oo uu la mid noqdo wiilkan la tartamayay isaga isku daygana daawasho wanaagsan. Couple of bounces, 15 feet away, good poise, and he's off. First one straight in, off to a better start. Now the current Guinness World Record for the most free throws in 1 minute is in fact 35, and that's held by Jimmy Connolly from the USA, which was set back in 1998. Is Boss Eriksson gonna beat it today? Let's find out. Already up to 14, 15, he's going strong. No signs of letting up. Already up to number 19. Remember, the quicker he throws them, the quicker they go in, the quicker he can get a Guinness World Record. Look at his friend there, he must be very fit as well. Keep feeding him those balls. Up to 24, 25. He's got off to an absolute stormer. Look at this, nearly at 30. Bit stuck on number 28. Can he break the mould? Yes, he can. 29. Ooh, close. They're just skirting around the edge. Number 30, number 31. He's found his form. Well done. Boss is also a professional basketball player and is leading scorer for Swedish team Solna Vikings. That's it, time's up. Is it going to be a Guinness World Record? Let's find out. No, it's not. A very upset man there, and I don't blame him. A staggering 34 shots on target. Wiilkan kale ayaa isna aan ku guuleysan inuu shabaqan kaga xareeyo 35 xabadood ee laga rabay ama 35 xabadood ee kubadda basketballka ah ee laga rabay inuu ka xareeyo shabaqani waxaanu ka xareeyay 34 xabadood. labadaasi wiil ee ku wada tartamayay dhacdadani kuma ay guuleysan midkoodna ma u galin buugan dhacdooyinka la yaab kale. halkaad barnaamijkan dhacdooyinka la yaab kale kala socotaan waa telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. daawadayaal wixii dhacdo ee aad haysaan ee ku saabsan dalka gudihiisa waxaad noogu soo gudbin kartaan ciwaanada iyo waliba nambarada shaashada idinku muuqda idinkoo text message ama fariin qoraal ah noogu soo diraya. annaguna waxaan hubnaa oo hubaal ah inaanu dhacdooyinkaasi aanu idinka soo deyn doono halkani. aan soo qabto dhacdadan markan idii hayo waa dhacdo ka dhacday wadankaasi Jarmalka. waxaynu ku eegi doonaa inuu dhashay isla wadankaasi Jarmalka oo isna raba in uu dunidan guudkeeda ama buuga lagu kaydiyo dadka la yimaada waxyaabaha mucjisada ah in ay kaga qayb galo oo uu ku soo biiriyo dhacdo ah in uu labadiisa cagood gaarsiiyo gacmihiisa inta uu sidaasi u kala qabto. bal isku dayga ninkan ayaynu eegi doonaa inta jeer ee si isku xigta uu cagihiisa u gaarsiiyo gacmihiisa. dhacdadana aynu fiirino. wadankaasi Jarmalkana dhacdadan oo ka dhacday wadankaasi Jarmalka ayaa waxaynu ku eegi doonaa ninkan aad arkaysaan ayaa waxa uu doonayaa in uu la yimaado dhacdo cusub oo ah in uu cagihiisa soo taabsiiyo labadiisa gacmood ama uu sameeyo ciyaarta jomastikada. haddaba bal ninkan u dhashay wadankaasi Jarmalka ee lagu magacaabo Ernest ayaa waxaynu eegi doonaa in ay u suurta gasho isku daygan uu rabo in uu ku soo kordhiyo buugan dhacdooyinka la yaab kale. Consecutive split jumps before he collapses in exhaustion. He's already off. Look at that. Up to 4, up to 5. A flying start from the Frenchman. Ernest actually performs with the world-famous Cirque du Soleil. weli waxa uu wadaa sidaad arkaysaan daawadayaal inuu cagihiisa gaarsiiyo labadiisa gacmood. bal aynu eegno gunaanadka. Paris, where him and his wife perform acrobatics with fire. Sounds pretty dangerous to me. He's actually up to 19 jumps, not 20 as it says on the clock, and that's him done. He looks absolutely exhausted, and I've got to say, I don't blame him. But congratulations to Ernest Louvelon, a new Guinness World Record. ninkan lagu magacaabo Ernest ayaa isagu ku guuleystay oo buuga dhacdooyinka adduunka ugu la yaabka badan ku galay in uu cagihiisa gaarsiiyo labadiisa gacmood si isku xigta 20 jeer. sidaasna waxa uu kaga qayb galay oo uu ku mutaystay abaalmarinta uu bixiyo buugan lagu kaydiyo dadka la yimaada waxyaabaha ama dhacdooyinka khatarta badan. haddaynu intaasi kaga nimaadno dhacdadaasi iyo isku dayga ninkaasi u dhashay wadankaasi Jarmal. dhacdada ugu dambaysa ee aan barnaamijka dhacdooyinka la yaab kale iyo toddobaadkan aan idinku soo qabanayo ama aan ku soo xiri doono barnaamijka ayaa waxay tahay
nin isagu buuggan World Genius Record ka doonaya inuu kaga qayb galo inuu ilkihiisa uu ku furo quruuradaha sharaabka lagu shubo furkooda oo ka samaysan bir ama badaasad aad u adag wax dhibi ninkani ma ka soo gaari doonaan muddo hal minida intee oo quruuradood ay suurtagal tahay inuu ilkihiisa ku furo waa mid aynu goobjoog u ahaan doono isku dayga ninkani ee daawadayaal bal aynu eegno dhacdadan ayaa waxaynu ku eegaynaa dhacdo ka dhacday wadankaasi Faransiiska ninkan aad arkaysaan oo lagu magacaabo Yves ayaa waxa uu buugan dhacdooyinka la yaab kale doonaya inuu kaga qayb galo inuu ilkihiisa ku furo quraarado aad u badan furarka ku xidhan haddaba ninkan ayaa waxa la eegi doonaa muddo hal minida ah inta quraaradood ee uu bal ilkihiisa ku furo amaba ay u suurta gasho aynu eegno dhacdadani Mashing up food, and by food I mean soft and squidgy cakes or malleable bits of pasta, not chunks of metal. But try telling this to this man, Yves Beldereur. His teeth can withstand virtually anything, as he's demonstrating right now as he tears off metal bottle tops using just his molars. Look at him go! 20 seconds down, about a third of the way through the bottles. That looks extremely uncomfortable. sidaad arkaysaan daawadayaal weli waxa uu ku guda jiraa inuu ilkihiisa ku furo quraaradahani bal aynu eegno gunaanadka iyo inuu ku guulaysto. It was held by Daniel Lambert, an engineering student from Jönköping in Sweden, and he opened 50 beer bottles in 1 minute. 50! Woohoo! Let's see though how Yves is going to get on. Down to the last 10 seconds. He's ripping his way through the final 10 or so. 3, 2, 1, look at him go! Good lad. All we've got to do now is just count up the bottle tops and see if we have a new world record. 50 bottles in 1 minute. Congratulations, Yves Beldereur. ninkan u dhashay wadankaasi France ayaa 50 quraaradood muddo hal minida gudaheed waxa uu furkii kaga furay ilkihiisa dhacdadan ayaa waxay noqotay dhacdo cusub oo ninkan u dhashay wadankaasi ku soo kordhiyay buugan lagu qoro dadka la yimaada waxyaabaha ajaayibka badan sidaasna waxa uu ku helay abaalmarinta laga helo Genius World Record-ka haddii aynu intaasi kaga nimaadno dhacdadaasi ka dhacday wadankaasi Faransiiska iyo isku dayga ninkaasi uu soo bandhigay ahaa inuu ilkihiisa ku furo sharaabadaasi ama quruuradaha sharaabka furkooda waxaad arkayseen inuu 50 xabadood oo quruuradahaasi kamida uu furkoodii kaga furo ilkihiisa iyadoo aanay wax dhibi ka soo gaarin sidaasna wuxuu ku mutaystay inuu helo abaalmarinta buugani laga bixiyo daawadayaal waxaan soo gaarnay guntii gabagabadii iyo waliba gunaanadkii barnaamijkeena dhacdooyinka la yaab kale barnaamijkan dhanka kamarada iyo lightingka waxaa had iyo jeer ama aalaaba noogu sugan oo inoo haga Cabdi Cumar Jibriil anigoo Jamaal Axmed Naasir ayaa barnaamijka halkan idinku soo saaray oo idin soo tabinayay is aragti maqal dambe koor daawadayaasha barnaamijkan xiiseeya waxaan idinkaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh